wadnahaaga halis ayuu ku jiraa haddii arrintan aadan ku samayn karin 90 ilbiriqsi. Intay da'deenu kordhayso waxaa si la mid ah u kordha muhiimadda ay leedahay in aan fiiro gaar ah siino caafimaadka wadnaheena. Xarunta baaritaanka iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka ayaa sheegtay in xanuunka wadnaha uu ku dhici karo da' walba, balse khatarta ay mar walba sare u kacdo inta ay da'da qofka kor u socoto. Laakiin sidee ku ogaan kartaa in halis caafimaad uu wadnaha ku sugan yahay haddii qalabka lagu baaraa laga helo isbitaalada kaliya ayna adag tahay in aad guriga ku haysatid sababo la xiriira qiimaha qalabkaas oo qaali ah? Ha ka welwelin, waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa hal qaab ama tijaabo oo aad meel walba ama gurigaagaba ku samayn kartid, taas oo kuu sahli doonto in aad wax fikrad ah ka heshid xaaladda caafimaad ee wadnaha ku sugan yahay. Qof walba oo wadnihiisu caafimaad qabo waa in uu kori karaa jaraanjar 2 dabaq gaaraysa muddo dhan 45 ilbiriqsi gudahood. Cilmi baaris lagu soo bandhigay shirweyne la qabtay bishii December ee 2020 oo ay isugu yimaadeen khubarada ka shaqeeya caafimaadka wadnaha ee reer Yurub ayaa sheegtay si aad u baartid ama aad u ogaatid caafimaadka wadnahaaga, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa saacad iyo jaraanjar gaaraysa 2 dabaq oo ka kooban 4 qayb. Cilmi baaristan oo ay ka qayb qaateen 165 qofood oo isugu jiray da' kala duwan, dad xanuuno dhinaca wadnaha qabay iyo kuwa caafimaad qabayba, ayaa waxaa la ogaaday in qofka wadnahiisu sida saxda ah oksijiinka u qaato ay 45 ilbiriqsi ku qaadato in uu koro jaranjar 4 qayb ah oo leh ilaa 60 tallaabo jaranjareed. Waxaa sidoo kale la aqbali karaa ilaa 90 ilbiriqsi in ay qofka ku qaadato isaga oo aanan ordaynin. Dr. Jesus Potero oo sameeyay cilmi baaristan kana howlgala isbitaalka jaamacadda Canura ee waddanka Spain ayaa wuxuu yiri, haddii 4 qayb oo jaranjar ah ku kori weysid muddo dhan 90 ilbiriqsi ama 1 daqiiqo iyo bar, waxaad u tagtaa takhtarka wadnaha si xaaladda caafimaad ee wadnahaaga loo ogaado. Cilmi baaris kale ay 2016 sameysay hay'adda American Heart Association ayaa sheegtay 45% nooca cudurka wadna xanuunka ama wadna qabadka heart attack loo yaqaano dadka ku dhaco uu yahay mid aamusan, oo micnaheedu tahay in uusan wax calaamad horey u muujinin balse si kadis ah uu u qabto ama ugu soo boodo dadka la xanuunsada. Arrintan ayaa ah in cudurkan halis yahay, halistiisuna ay sii kororto mar walba uusan muujinin calaamadaha wadna xanuunka, kuwaas oo kuu sahli lahaa in aad u tagtid takhtar si wax looga ogaado caafimaadka wadnahaaga. sidaa daraaddeed waxaad ogaataa in ay muhiim tahay la socodka xaaladda caafimaad ee wadnahaaga, maadaama wadna qabadka uu kugu dhici karo adiga oon filanaynin. dowladda Mareykanka ayaa ku jirta wadamada adduunka ugu horeeya caafimaadka iyo cilmi baarista ku aadan cudurrada wadnaha. sidaa darteed Maanfur waxay idiin soo gudbinaysaa macluumaad walba oo anfac u leh dadka Soomaaliyeed. taladan ayaan waxaan u aragnaa in ay si fiican u anfici karto shacabka Soomaaliyeed maadaama aysan haysanin takhaatiir badan ama qalab si joogto ah loogu ogaado xaaladda caafimaad ee wadnaha. taladan ayaa ah mid aad si fudud u samayn kartid, taas oo kuu sahlaysa in aad ciyo ogaatid xaaladda caafimaad ee wadnahaaga ku sugan yahay. waxaad raadsataa saacadda leh dhaqaaq iyo joogsi ama kuwa loo yaqaano stopwatch. waxaad fuushaa dabaq gaaraya 2. ha ordin marka aad fuulayso, tartiib u fuul ama u kor sida caadiga ah ee aad awalba u kori jirtay. haddii ay kugu qaadato in ka badan 1 daqiiqo iyo bar ama 90 ilbiriqsi, waxaad ogaataa in xaaladda wadnahaaga ay u baahan tahay la tashi takhtar ama fiiro gaar ah. waxaadna si degdeg ah u raadsataa takhtarka wadnaha ee meesha aad degan tahay ka howlgala. haddii aad ka heshay macluumaadkan, fadlan ku soo biir kanaalkeena YouTube-ka, subscribe, share and like. mahadsanid.